madaxweynaha dalka William Ruto ayaa hogaamiyaasha wadamada qaaradda Afrika ku booriyay inaynan kaliya xoogga saarin wax soo saarka beeraha balse ay ku dadaalaan sida tani looga faa'iideysan karo iyo soo saaridda badeecooyinka kale. Ruto oo hadal ka jeediyay shirweynaha ka socda magaalada Dakar ee caasimadda dalka Senegal ayaa hoosta ka xariiqay in Afrika ay awood u leedahay inay soo saarto cunno badan oo dibadda loo iibgeyn karo. Waxa uu carabka ku adkeeyay in arrintan ay suurtagelin karto in la helo dakhli dheeraad ah sidoo kalena in dhalinyarada loo abuuro fursado shaqo. William Ruto ayaa xusay in madaxda Afrika aan 60 sano kadib xilligii madax-bannaanida looga baahnayn in ay ka hadlaan cunno. Hogaamiyaasha waddanka oo ka qayb galay dood loo qabtay ilaa 10 madaxweyne ayaa sheegay in si sare loogu qaado abuurka beeraha la doonayo adeegsiga tiknoolajiyadeed, waraab sare iyo qalab casri ah. Waxa uu ka digay in wax soo saarka beeraha uu noqdo mid ku tiirsan roobabka, isagoo intaasi ku daray in tani ay tahay sababta wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika ay weli wajahayaan gaajo. Ruto ayaa tilmaamay in haddii si weyn loo adeegsado waraabka beeraha iyo bacriminta in uu kobcayo wax soo saarka gobolka.